maalinta wadajirka iyo waxqabadka dhalinyarada Soomaaliya oo bil kasta 19keeda laga fuliyo guud ahaan gobolada dalka ayaa maanta laga fuliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana dhalinyarada iskood isku xilqaantay toddobaadkan diiradda ku saaran waxqabadkooda muhiimada ay leedahay bilicda magaalada Burco iyagoo laamiyada iyo halbowlaha u ah ee dhexmara magaalada Burco ka sameeyay qashin ururin balaaran waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay qaar kamid ah dhalinyarada waxqabadka iyo wadajirka ee gobolka Togdheer oo tilmaamay muhiimada ay leedahay qashin ururintani halkan waxa ku sugan dhalinyarada maalinta wadajirka iyo waxqabadka dhalinyarada Soomaaliland ee gobolka Togdheer ilaa sodomeeyo dhalinyaraha ayaa ka shaqeynaya maanta hawlgalka barnaamijka 19 bil kasta aynu ka qabanno dalka oo dhan barnaamijkani waa fariin ficil xambaarsan fariintii afka ahayd ee dadka lagu wacyigelin jiray hadalka kaliya ayaa barnaamijkani waxa uu ku daray ficil waxaana maanta la fulinayaa oo barnaamijkii ama barnaamijka maanta halkan wada joognaa uu yahay inaanu fulino ololo nadaafadeed oo gacanta laga qabanayo oo la xaarayo laamiyada iyo jidadka halbowlaha wax magaalada Burco ee bilicda magaalada soo saaraya qof kasta oo reer Soomaaliland ah qof kasta oo reer Burco waxaanu ka codsanaynaa inuu nala dareemo dareenka wadaniyadeed ee aanu dareensanahay saaka ee aan u soo kalahnay iyadoo ay tahay 19kii bisha maalin sabti ah warxii magacaygu Khalid Bakeele waxaan ka tirsanahay dhalinyarada gobolka Togdheer aad maanta waxaan ugu faraxsanahay taariikhdu 19kii bisha Maarch maalin sabti ah inaan ka soo qayb qaato maalinta wadajirka wada qabsiga dhalinyarada Soomaaliland anigu fariintan halkan ka diray waxay tahay guud ahaan dhalinyarada gobolka Togdheer barnaamijkan la wada ee fariinta ficilka xambaarsan waa barnaamij bulshada iyo guud ahaan qarankaba waxtar weyn u leh in ka soo qayb qaataan baan idinku boorinayaa oo waxna la qabataan intii karaankiina maalinta wadajirka iyo waxqabadka dhalinyarada Soomaaliland waa Burco goobtu waxaan ka oran lahaa laba fariimood fariin xukuumaddan u diraya fariina shirkadaha soo saara biyaha la cabo maanta tarkiga ugu weyn waxa weeyaan in la ururiyo caagadaha laamiga hareerihiisa ama suuqa daadsan oo biyaha laga laasto oo ku haya bilicda deegaanka foolxumo weyn xukuumadda waxaan leeyahay sidii aad bacda deegaanka dhibaatada ku haysi aad go'aanka uga soo saarteen inaad caagadaha biyaha laga laastana aad uga soo saartaan iyadana muwaadiniinta reer Soomaaliland gaar ahaan reer Burco diyaar bay u yihiin haday yihiin ganacsato haday shicib yihiinba inay ka shaqeeyaan bilicda waxaan ku boorin lahaa in la taageero barnaamijkan waxaan halkan u taaganahay olole wacyigelineed oo ficil xambaarsan kaasoo ku nadaafadaynayno gobolka Togdheer qaybo kamid ah laamiyadiisa fariin ayaan doonayaa inaan u diro anigu dhammaan bulshaweynta reer gobolka Togdheer haday tahay qurba joog haday tahay dal joog iyo haday tahay kuwa dibadaha joogaba fariintaas waxa weeyaan dalkeena waxa uu iskageeyay ama bilicdii quruxda ka qaaday lambar 1 ee ka wada cabanayna waa caagadaha biyaha iyo sharaabka lagu cabo waxaan fariintan u dirayaa ay tahay dhammaan wixii ganacsadaha ama wixii Ilaahay hanti siiyay inay inoo keenaan warshad caagadahan ama bacahan magaalada ka soo baxaya ee warshadaheenu soo saarayaan recycle ku sameeyso oo dib u isticmaasho si looga faa'iideysto wastigii ama qashinkii magaaladeena dhex yaalay isku soo wada duuba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer intii dhalinyaradan ee ku jirtay hawl maalmeedkooda wadajirka iyo waxqabadka dhalinyarada Soomaaliland ee laga fuliyay gobolka Togdheer ayaa bulshada gobolka Togdheer waxay indhahooda soo jiitay dhalinyaradan fulineysay qashin ururintan Cabdirasaaq Cabdullaahi Shaqada Absa Koronto telefishinka madaxa banaanay Soomaaliland gudaha magaalada Burco